wiilkaaga marka ummadda waxaad leedahay ummadda wuu dhibay adaa ku markhaanti furaya wiilkayga ummadda waa dhibay in laga qabto baan raalli wahay ilaahay waxay xun raalli kama aha eeddaa lagu haysto aabbaha maragga ka yahay ka war eedda eedo badan oo marag ka yahay aabbahay wuxuu marag ka yahay maxaan iskaga difaaca gudoomiye cabdixaafid maxamed ibraahim istaag bismi illaahi raxmaan iraxiim eedaysane cabdixaafid maxamed ibraahim ina xaawo warsame 18 jira ku dhashay degan garow waxaa lagu haystaa laba dembi inaad burcadnimo samaysay si waafaqsan 484 tay moobello ka furatay aasiyo maxamed faarax samiire cabdiqaadir xuseen iyo sidoo kale aada isticmaasho maandooriyaha la dhaho khamriga aada garowa ku gashay aagga injida hana amaamulan gacanta aad gashay dembigaa eeddaas aada gashay wakhtiyadu ay kala duwanaayeen xashiishkaasna khamrigaasna aad adigu tahay qofka cabba eeddaa lagu haysto cabdixaafid ma gashay haa maya ma gelin dumarkaa sheegaysid waxba kama aanan qaado haye khamriga ka war khamriga ma isticmaalo ya khamriga ma isticmaalo maada cabdin marka waa isticmaali jirtay oo khamriga waa cabi jirtay fideogaas caddaynta soo kaxaystay gaariga soo kaxaystay magaciina ka soo kaxaystay gaariga ya waa lagu soo wacay yaa ku soo wacay loo haysto dambiyada burcadnimada iyo isticmaalka maandooriyaha si waafaqsan qodobka 484 iyo qodobka shanaad farqadiisa labaad xeerka dagaalanka maandooriyaha dowladda Puntland eedaysanuhu waxa uu lagu eedeynayaa inuu geystay labada dambiga koowaad waa burcadnimadana ay dhibana ka yihiin aasiya maxamed faarax iyo samiire cabdiqaadir xasan labadaa dhibanana uu geystay burcadnimo uu ka furtay teleefon sidoo kalena eedaysanaha markuu falkaa geysanayay ay sameeyeen dhibanayaashu inay qabteen markaas oo dad goobta muxuu ahaaytay ka dhowaa ay gacanta ku dhigeen sidaana lagu soo qabtay saldhigga lagu geeyey faldambiyeedkaasna uu ahaa faldambiyeedka falagaransada ah ee lagu soo qabtay sidoo kale eedaysanuhu sidaanu maxkamadda la wadaagnay eediisa waxaa lagu eedeynayaa isticmaalka maandooriyaha aanu caddayntiisii maxkamadda keennay fideogiisii maxkamadda keennay isaga oo markaas sakhraansan ciidanka booliskuna ay maaragtay caddayntiisaa soo gudbiyeen sidoo kale eedaysanuhu wuxuu ku hayaa bulshada dhibaato weyn hadday tahay burcadnimada dembiyo badan oo lagu eedeynaya asaga webiga la geliyey marar badan dembiyo noocaasa loo soo xiray sidoo kale aabbihiisu oo asaguna jooga oo caddaynayo wiilkiisa dhibaatada weyn ee uu ummadda ku hayo ee uu asagana caddaynayo inuu dhibaato ummadda ku hayo isticmaalka maandooriyaha iyo amni darrada uu bulshada ku hayo intaba ay u dheer tahay wiilkaaga maxaa ku taqaanaa gudoomiye waxaan ku aqaan inuu nin yahay waddanka dhibay xashiishada cabbo haddii ilaahay khamriga hadduu doono cabbo ummadda telefoonada ka dhaco goortu xashiishada cabbo qofku waa kitoore ku dhufto intee qof dili ilaa dhowr qof kitoore ku dhufto ilaa 4 qof oo haddeer kiiskooda inta badan taagay kiisaskooda maxkamadda ma ku jiraan qaybtooda waa ku jiraa maslax waa ninkaa ogeyd waa ku jiraa qaybna ummadda u sharax ninkaa ogaa maslax maslax waa ninkaad ogeyd oo 12 kaalaad layga samay waxaa jiray nin kale oo isaguna iyagoo saddexa ay toreeyeen
nin meelaha ka soo intuu ka soo afduubo been sheegay oo yiri qono socdaa oo la soo afduubay oo mid wiil kale soo afduubay kan iyo mid kale intii la wacay oo togal la geeyey lacag $100 laga furtay tooriyana lagu dhuftay oo aan $100 celinay laakiin tii kiiska kale aan wali ku kala bixin oo nimankii kale yiraahdeen macnaha kaligiisa geystay oo isku qabanay saldhiga dhexe baa cadiyar naloo keenay cadiyar aan saldhig kala soo wareegnay kadib niman kale intay sugan waxay yiraahdeen wiilka kaliya baa hawsha sameeyay ana waxaan ku yiri saldhiga aan dib isku gulaan noqon taa kale loo kaadi taa kale wiilkaaga marka ummadda waxaa leedahay ummadda wuu dhibay adaa ku marqaanti furaya wiilkaygu ummadda waa dhibay in laga qabto baan raalli wahay ilaahay waxay xun raalli kama aha okay dembi baana igu socda cabdi xaafid istaag lagu haysto aabbaha marayga ka yahay ka war eedo badan oo mara ka yahay aabbahay wuxuu mara ka yahay maxaan iskaga difaaca gudoomiye aabbaha wuxuu mara ka yahay maxaa iskaga difaacaysaa warka waxaad leedahay waa maxaa marka iska bedelay warkaagii hore waxaad tidhi wax ma samayn dembigaa ma gelin baad tidhi marka intuu aabbaha sheegay waa run soomaa intuu aabbahay sheegay waa iskugu jiraan run iyo beenba aabbaha run iyo beenba waa sheegay haye kiisas aana gelinna waa sheegay waxaan galayna waa sheegay aabbaha wuxuu yidhi niman baan la socday kiiskaa kale 3 nin bay ahaayeen waxaan ku yidhi wiilkayga waa lala socday soo caddaysta mid maxkamadaaba aabbaha u xirtay oo aabbaha wuxuu u xirnaa fulin ninkii maslax ahaa ilaa ka 3 jeer bay aabbaha maxkamaddu xidhay ninka maslax nabara ku dhuftay soo adiga ma ya xaggee kaga dhufatay xaggan garabka gacantii marka waa naafowday soo ma ma naafowday faraha iyo waa gacantaa uga dhufatay toorada soomaali daraadeed maxkamadda sharafta leh maadaama eedeysanuhu uu isticmaalayo maandooriyuhuna yahay mid bulshada khatar ku haya asaga naftiisana khatar ku ah uuna sheegay inuu yahay mid uu muddo cabayay oo isticmaalayay sidaa daraaddeed maxkamadda waxaan ka codsanaynaa in eedeysanaha lagu xukumo 8 sano xariga iyo $2,000 oo ganaaxa si uga waantoobo ummaduna uga nasato maxkamadduna waa mahadsan cabiday waxaan codsanayaa in xukunkayga laga khafiifiyo maxaa ka wada يعني أنت حراليه يراهدي إن كان إن لا يروح كمان. أنت دوران لاي. يا. أنت دوران لاي. أنا وحبان دوران يا هدا يراهد هل سنة دوران لها. أوكي. أي. محكمة الدرجة كواد يضاف فريقه ككوبين ياي. دمي عبد الكريم محمد أو نور ونكالنا يكالنا غيبة العقارة كالنا شعيب عبد الرحمن موسى وجوبشوي يا حفيزك حلال أنتوا واحد محكمة كله واقضي. حكم ولي هاي دقيسي بعد جس عبد الحافظ محمد إبراهيم إن حوا ورسمه كل شدة تبن سقالي تبن شرا كل شدة جنجرو كاسو لقصو إذا يبر عنهم سواء فخسن أفر بقولي أفرتن يستعمال كمان دوريها سواء فخسن حير نمبر شن قلب كأفراد الشنات فقرات هذا اللبات إن سلا درادد هذا السنة مركي إيد الله آخرية سواء فخسن بقولي الصدح وكل جوابي إنه استعماله من دوريها خارجة لكني مقال سجوا عبسن مقال كان محكمة دعوتي إنه عبسنا سجى مركي محكمة ويديستنا إنه الشيء إنه خمرجة سجوا عبه إن سدوا كلام محكمة مركي أركتي دقيستي إن قرال كيسة وقرصية هي مركي لجي ماذا إن هذا الله هيستو وأبيهيس محكمة كور عادية إن إلى أفر قف وداوعي توري وكل داوعي سيدا درادد محكمة دو إدى الله هيستو وقرالك كوية هاي أبيه كمرك فري أباه إذا سنونا عدية إن والكيس ومدى ديبكو هايو بلود لي هاي دادكنا وفرتو إلى أفر قفنا وداوعي محكمة دو مركي أراكتي فقرات قضب كأفراد يشانات فقرات كودو كواد يلابات حيرك الله دجالن كمان دوريها دولة بونتلاند محكمة مركي آخردي لما نقول لك كل دجال دعواتك محكمة مركي أركتي فيديو جاي محكمة حلال توصل بنكتي
maxkamaddu markay aragtay gabagabada xafiiska xeer ilaalinta codsiga eedaysanaha maxkamaddu markay aragtay in dambi dhacay si waafaqsan 163 eedaysanuhuna yaa kii galay maxkamaddu iyadoo asbaabta sare ku xusan ku salaynaysa qawaaniinta dalka dhammaantood ku salaynaysa maxkamaddu waxay ku heshay dembigii loo haystay dembiile oo ahaa isticmaalka maandooriyaha khamriga dembiile cabdixaafid maxamed ibraahim ina xaawo warsame ku dhashay degan garoowe maxkamaddu waxay ku xukuntay eedaysanaha 5 sano oo xabsi ah oo ka bilaabanaya maalintii la soo xiray wallahu subxaanahu wa tacaala